kulanti wacan oo wanaagsan daawadal kuna soo dhawaada janalkeena ka ah wararka aan ku soo gudbino xogihii ugu dambeeyay macluumaadkii arrimaha Soomaaliya iyo caalamka qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka noqon doona su'aalo iyo falcelin xoog leh oo ka dhalatay sawir madaxweyne Farmaajo oo lagu daray boorarka maalmaha xurriyadda oo lagu dhijiyay meelo ka mid ah magaalada Muqdisho wadooyinka muhiimka ah dadku shacabka siyaasiyiinta ayaa ka aragti dhiibtay su'aalo iyo falcelin xoogan ayaa ka dhalatay waan soo gudbin doonaa soo kale waxaa daawan doontaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo mar kale madaxda maamul goboleedka iskugu yeeray shir ka furmaya Muqdisho toddobaadka soo socda waxyaabaha looga hadlayo iyo shakiga weli jira ayaan soo gudbin doonaa daawadayaal gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi wuxuu u digniino ka soo saaray wareegtooyinka sharci darrada ah oo sheegay in madaxweyne Farmaajo uu saxiixayo isla markaana lix wareegto uu baabiyay haddaba tallaabo hor leh uu qaaday iyo sheeko bilowgeed ayaan soo gudbin doonaa qodobadaas aan ku faahfaahin doonaa wararka arrimaha caalamka iyo diblomaasiyadda ku saabsan fadlan haddii aad nagu cusubtaa ka qayb qaado dibulisa dadka oo subscribe nagu dhiirigeli gambalkana furo una share gareey saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo commentiga like-na inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin waxaan ku bilaabaynaa daawadayaal falcelin xoogan iyo su'aalo badan ayaa ka dhashay sawir markaas lagu soo qoray boorna la soo dhaxgeliyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadibna la suray meelo ka mid ah Muqdisho wadooyinka ugu muhiimsan waxaa magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka ka socda diyaar garowga maalmaha xurriyadda ee ku asteesan xuska sanad guurada 61aad markii laga xoroobay gumeysihii Ingiriiska iyo Talyaaniga 1960kii magaalada Muqdisho oo si weyn looga dareemayo diyaar garowga maalmaha xurriyadda 26 Juun iyo 1 Luulyo ayaa waxaa wadooyinka Muqdisho la suray tabeelooyin lagu muujinayo qiimaha maalmaha xurriyadda hase yeeshee waxaa tabeelooyinkaasi la suray sawir uu markaasi ku sawiran yahay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo oo lagu hoos qoray 1960 sawirkan oo baraha bulshada si weyn loogu faafiyay ayaa dhaliyay su'aalo xoogan oo ku saabsan danta laga leeyahay wuxuuna muujiyay marin habaabin jiilka dambe lagu sameynayo iyo gudbinta in Farmaajo lala meel dhigay halgamayaashii xurriyadda u soo halgamay ee dhigooda iyo dhacaankooda ku baxshay inkastoo uusan dunida joogin maalinkii la qaatay xurriyadda qoraalada baraha bulshada lala wadaagay ayaa dhammaantood muujiyay inay gaf iyo aqoon dari tahay in sawir lagu muujinayo maalmaha xurriyadda in lagu soo gudbiyo madaxweyne mudxuleedkiisu dhamaaday taas oo dhaawacaysa dowladnimada iyo xuska loo sameynayo maalmaha xurriyadda in boorarka lagu xusayo halgamayaashii xurriyadda usoo halgamay ama usoo dagaalamay in lagu daro in lagu xardho sawirka madaxweynaha waxay muujinaysaa ama gudbinaysaa in shakhsiga lagu sawiray lala meel dhigo halgamayaashii xurriyadda soo gaarsiiyay dalka taasina waa qayb ka mid ah marin habaabinta iyo xukun jaceylka ku dhisan diktaatooriyadda ayay leeyihiin siyaasiyiinta ka falanqooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya tan iyo burburkii dalka Soomaaliya waxaa soo maray dowlado markaasi ku meel gaar ah iyo mid markaasi ka gudubtay ku meel gaarnimada oo aatan federaalka qaadatay qaybii hore janalkeena ka wararka ayaa daawanaysaan saaxiibayaal fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe ka saaro gambalkana furo una share gareey saaxiibadiin kale meel kasta joogaan idinkoo commentiga like noo reebaya aad baad u mahadsantihiin markaana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu mar kale shir iskugu casuumay madaxda dowladda federaalka ee ku maamul goboleedyada Roble ayaana casuumaad rasmi ah u diray madaxda golaha wadashi qaran si maalinta Sabtida ay soo socdo ay iskugu yimaadaan shir ka dhacaya Muqdisho qoraal kooban uu soo saaray xafiiska wasaare Roble ayaa waxaa lagu sheegay in shirkan Sabtida la iskugu wareysan doono howlihii ka qabsamay arrimaha doorashooyinka tan iyo heshiiskii 27kii bishii May ee dardargelinta shaqooyinka harsan shirka Sabtida ayaa imaanaya kadib markii uu xalay wasaare Roble uu kulan dhanka qadka Zoom-ka uu kula yeeshay madaxda maamul goboleedyada iyo duq Muqdisho oo aan kulmin wixii ka dambeeyay markii uu dhacay shirkii ama heshiiskii doorashada ee lagu saxay Muqdisho xogta shirka Sabtida oo aan hor u baahnay ayaa waxa uu qayb ka yahay dardargelinta heshiiska doorashada iyo kor u joogteynta hanaanka doorasho ee hore lagu heshiiyay iyo howlihii qabsoomay shirka lagu wada in maalinta Sabtida uu ka furmo Muqdisho ayaa waxa uu qorshe u yahay inay hortagi doonaan guddiga farsamada uu magacaabay Roble kuwaas oo warbixin sii doona madaxda golaha wadashi qaran sidoo kale xogta aan helnay ayaa waxay sheegtay in wasaare Roble uu magacaabi doono guddi dib u heshiisiin ah kaas oo heer wasiir ah waxaana xubnaha guddigaas laga soo xuli doonaa xukuumadda dowlad goboleedyada oo aysan ku jirin maamulka Jubbaland guddiga wasiirada ayaa sida uu qorshe yahay waxaa loo diri doonaa magaalada Galbeheer iyo xarunta gobolka Gedo waxayna ka soo talbixin doonaan qaabka loo xalin karo ismarwaaga maamul ee ka jira gobolka Gedo kaas oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland qaybihii hore ayaa weli daawanaysaan saaxiibayaal
dalkeena ka aha wararka ayaana si toos ah nooga socotaan ka qayb qaadada booliiska dalka aan ku sameynayno aad baad u mahadsantihiin nagu dhiirigeliya inaad subscribe noo saartaan oo gambaleelkana aad sii furtaan. markaana gudoomiyaha golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi ayaa waxa uu soo saaray markaas wareegto oo ku sheegayo in sharci darro ay tahay wareegtooyinka markaas madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo uu saxiixay islamarkaana asigoo sheegay in markaas la baabi'inayo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sharci darro ka dhigay ilaa 6 sharci uu saxiixay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday farmaajo. qoraal ka soo baxay guddoonka aqalka sare ayaa lagu faahfaahiyay sharci darrada ansixinta laba guddi oo heer federaal ah iyo 4 sharci oo wax ka bedel lagu sameeyay iyadoo aan ansixin aqalka sare, taas oo ah sharci darro inuu saxiixo madaxweynaha iyadoo aan markaasi loo gudbin aqalka sare. guddida adeega garsoorka iyo guddiga madaxa bannaan ee dagaalanka musuqmaasuqa ayaa ka mid ahaa sharcidii uu saxiixay farmaajo iyadoo oo markaas aan loo gudbin soon ansixin aqalka sare. arrintan ayaa waxa ay timid markii uu xilligiisa gaabis ka ahaa iyo markii uu madaxweynaha dhamaaday madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. qaybtii dhexe janalkeena ka ah wararka ayaan isla soo gaarnay daawadayaal ka qayb qaadada booliiska dalka aan ku sameynayno aad baad u mahadsantihiin oo markaasi nagu dhiirigeliya inaad subscribe noo saartaan. markaana haddii aynu aadno warar kale arrimaha Soomaaliya ka baxsan ee gobolka Geeska, dagaal culus ayaa ka qarxay deegaano badan oo ku yaala gobolka waqooyi ee dalka Itoobiya ee ku yaala Tigray, waxaana dagaalkaasi u dhexeeya ciidanka federaalka iyo kuwa dowladda sida wararku ay sheegayaan. xoogga fallaagada Tigray ee TPLF ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen tiro magaalo ah halkaas oo dad goobjoogayaal ah ay u sheegeen warbaahinta in arkeen dagaalyaano oo roondo sameynaya. militariga Itoobiya ayaa sheegashooyinkaas meesha ka saaray waxayna ku tilmaameen warar been abuur ah. dagaalka ayaa ahaa kii ugu cuslaa tan iyo bishii November markii dowladda Itoobiya ay ku dhawaaqday inay ku guuleysay dagaalka. kumanaan qof ayaana lagu dilay magaalooyinka kale waana lagu barakiciyay dagaalka oo bilowday ku dhawaad 8 bilood ka hor. dagaalka kadib ilaa iyo 5 milyan oo qof oo ku nool Tigray ayaa u baahan gargaar cunno, in ka badan 350,000 waxay ku nool yihiin xaalad macluul ah sida lagu sheegay warbixin dhawaan ay taageertay UN. warbixinada dagaalka ayaa imaanaya iyadoo markaasi socoto tirinta codadkii laga dhiibtay doorashadii guud ee Isniintii dhacday. xaaladda amni awgeed ma jirin wax codbixin ah oo ka dhacday gobolka Tigray. waayahay saaxiibayaal, intaan soo gabagabeynin wararka ku saabsan waxaa si weyn baraha bulshada ugu qabsaday islamarkaana hadalhayn xoogan ka dhatay fanaanada reer Suudaan Naada Alqala oo markaas Soomaalidu si weyn ay taageero ugu fideen ka gadaal markii ay gaartay mid ka mid ah himilooyinka ay ku roonayso ah 2 milyan oo followers, taas oo ka dhigan in shacabka Soomaalida ay si weyn ay hambali ugu diraan. dabatan sheekadaas ee markaa aan kaga diyaarnay guud ahaan daawadayaal waa naga intaa wararkii ugu weynaa ee Soomaaliya caalamka aad kala socoteen janalkeena ka ah wararka. fadlan ka qayb qaadada booliiska dalka aan ku sameynayno aad baad u mahadsantihiin oo nagu dhiirigeliya subscribe inaad saarataan gambaleelkana furtaan una sii share gareysaan saaxiibadii meel kasta ay joogaan.